KNN nin waxaan ku weydiiyey kalamaan ma dhegaysatay war naga tag oo maxaa dhacay mar dambena su'aal ma weydiin kartid sabab kalamaan ma dhegaysatay markaad leedahay maxay sheegtay ma tiraahi horta sheekadan kalamaana markii aad maqashiin how maxaa tiiriya may erti midii miidaysay maahino si aad u hesho xubinta kalamaan ee ka baxda maalin kasta radio kulmiye fadlan subscribe saar janalkan KNN war bedel waa loo bagi waaye war taliyaasha saldhigyada booliska mar hore ayaa la bedelay war kuwaan lama bedelin waa la isku bedelay war aan helo warkii inku boobta oo sugniyow gudoomiyaalka degmooyinka qaar ka mid yaa la bedeli haano u suban oo sajal hata warqada ka fiigaale ka bedeli haano intii boos iyo kororiya boos kale lijeey ma ileega jiray bilaayo haba badata bahawayta boojal yareesto wala mbiraysla sabaahada mbata boojala baaha biyaasi aan helooshin madeeyow haan waa la toli jiray haan sajara weligay ma maqal war gudoomiyaha cusub ee howlwadaag loo magacaabay magaciisa waxaa la yidhahdaa Mustafa Cali Khayre gudoomiyaha cusub ee degmada Kaaraan loo magacaabayna waxaa la yidhahdaa Abshir Kaaraan war degmada Cabdilcasiis haweeney baa loo magacaabay beent iska daayay war gudoomiye degmo ma ahayn gudoomiyaha gobolka Banaadir wuxuu la kulmay madaxda Abisoom war naga soo gaara miyuu yiri war warkaan naga dhaxgelin waxa laga wada hadlay abiniga iyo in shabeelooyinka la xasiliyo oo laga sifeeyo nabadiidka si caasimadu u xasisho waxaan la yaabay ku-xigeenka madaxa Amisom wuxuu yiri Muqdisho ma ahan kaliya xarunta dawladda ee waa hoyga dhamaanteen iyo meesha ay ku nool yihiin 3 milyan oo Soomaali iyo ajaanib isugu jirta war wadanka xalana miyuu nagu soo dara war hadda ka hor wakiilkii hore qaramada midoobay Nicholas Hayson ayaa wuxuu yiri Muqdisho ma aha Soomaaliya ma aha Muqdisho waana tii la ciiriyay kanina amuu taas sababsada war cala madaxweyne Farmaajo ayaa la kulmay saraakiisha booliska wuxuuna yiri amniga waa in la sugaa shacabkana la ilaaliyaa maantana nin shacab ayay boolisku iska sanca ku dileen aryaakaasu tooreeyow sitayaa la yiri askariyowna dhaawacay xaad sheegay adigu war waxa la yiri gaf tanaasulkiisa ka roonbadi turxaantii boogtana tifwa kaga daraasiitu maatiyay tuqsiga ka adag meel bugtoonto xobi saareen intaasaan ku soo koobayo inaan si badan qaadiyaad ka tagtay warnimada waxa dhiba askari meel taagan tooray la'aad war may bata ka saasiyada langori wada hubaysan tooray la'aad ninkii askari meel taagan tooray la'aado hadda waa shabaab ogow langori wada lanki tooray la saada doqon dhaansadiyo laakiin askari ma badilaaw bilan tooray wada luta ku jibiifadi oo bus askari ay wariyo waxa shubaysan lagu garan maaye shirkadii DB Wall ee carruurta caanaha noo siinaysay dhismihii degada berbera way joojiyeen waxaana caqabad ku noqotay dhuumihii shidaalka marka waxaan u baahanahay haddaan nahay Somaliland shirkad kale oo dhuumaha naga iibsata oo carruurta caanaha noo siisa nimayaw kiiska caashe Ilyaasa gaalkacyo lagu baarayo waa soo dhamaadayaa la yiri dhacaanadina waa la kala ogaadayo mugdhow dad ay ku cadaa doontaa war adeero caasho calal xumadeeda naga daa calooshu ku wareegtay maxkamadda mugdhow ku dhawaaqi doonta dambiilayaashiyo dambiga laga toogto war meesha kufsiga laga banaan baxay war ma haysida waa garowe waxayna yiraahdeen inta qof ee kufsiga u xidan cadaaladda la soo hortaago war nimaya war ma haysaane waxa la soo saaray koobka maamul goboleedyada ay ku kala guuleysteen Somaliland waxa ay qaaday koobka ictiraaf raadinta war adeer haboodina miyana jumhuuriyad ahayn ma la aqoonsaday he Puntland waxa ay qaaday koobka kufsiga haddan ka hadlayn war nimaya galmudug waxa ay qaaday baa liiri koobka khilaafka tan ha ku qasabtay carabeeya waan tacbanay Jubbaland waxa ay qaaday koobka masaafurinta xildhibaanayba soo masaafursheenay haddaan soo qotonsheenaa la yiri war Banaadir waxa ay ku guuleysatay koobka dalalka bajaajileyda war waa roonta haday saqaraxyada ku guuleysan Hirshabelle iyo Koonfur Galbeedna waxa ay si wada jir ugu guuleysteen koobka sheegashada shabaab la dagaalanka buda ninka been abuurtay Koonfur Galbeed hatil roogo deegaamo hudur baalo sheego qabsadeen waana dareerayaan sheegashada meet runtii abuwa araalow ciidanka in hadii kacoohayin hiideenayna xuraynayin ar markaad ka ciidinaan wada kacayna beled weyn allahayo ka dulqaad balaayada Muqdisho
aryaadhaha baadiyaha cadaado oo la dhaqatadi joogta waxay ka cabahayaan dugaag la sumeeyey oo iyo waashay dad iyo duunya waxuu arka xagahayo waxuu xagtaana hore ka dhimahayaan war dawladda kenya dhakhaatiirtii mandheere laga afduubtay waxay diiday inay madax furasho ka bixiso war waxaa la yidhi ganacsatadii soomaaliyeed ee south africa joogtay hantidoodii baa laga boobayaa yaa iyaku canshuur ma baxshaan miya wasiir bayle ma joogo south africa canshuurta yaa la siina war soomaalida muqdisho joogtaba nafteedii baa laga boobaya waar ma habaalbilaash baa ku jiraysaan waraa warkaan aad maalin kasta meeshaa noogu keentaanoo aan qiimaha laynta iska daysaan dalka u shaqeeya war ninka waa kaa yari haka heshoonniyo balaayaa lahaydanka kor qaadee